بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين afayeenkii dhanka warbaahinta ee beelaha habar gidir ee baraha bulshada weeye ninka hadlaya halay dul qaato weerar baan rabaa inaan qaado waa ruqaansanaya saak cibaadaysan cindiga ku haye danuba way igu celin ciyaaraha waxaan ku ruqaansanayaa saddex qolo ra'iisul wasaarihii dalka ee hore Cabdi Faarax Shiiqdoon kuwii matalayaasha beesha habar gidir ee maalin walba ayagoo abe saxan baarsan magaalada Muqdisho garoonka Muqdisho ka soo dejinaya kuwa ku dhagan Axmed Macalin Fuqi geesiga waxaan ku hormarayaa Cabdi Faarax Shiiqdoon waxaan leeyahay Cabdi Faarax Shiiqdoon ma raba inaan kugu dheeraado waxa weeye xidid baan nahay waliba caashaha cilmi inaha cilmi waa gabar aan xushmad badan u hayo oo qadarin badan u hayo oo habar gidir aan iskala sii degno oo reexaaji Saleemaan aan isla nahay oo beesha Dashame aan isla nahay oo beesha Gaabane aan isla nahay markaas baan Maxamed Gaabane iyo Axmed Gaabane u kala leexanaa 20 sano xildhibaan ay ahayd 20 sano siyaasadda igu matalaysay federaalka ah xushmad baan u hayaa waxaan leeyahay adeertay sharaf iyo karaamo korkaaga ha ahaato adigana ma raba inaan kugu dheeraado laakiin waxaan ku leeyahay Cabdi Faarax Shiiqdoonow 5 sano taladaada nala ku dilahaya markaan habar gidirnahay iyo hawiye 5 sanaad waxaad u ahayd in adeerka maxaa Cabdullaahi Farmaajo la taliye 5 sanaad la taliye u ahayd waxa tala ku bixisa weerarkiina Cabdi Shakuur waxa tala ku bixisay weerarkii Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid waxa tala ku bixisay weerarkii imaamka beelaha Mudulood waxa tala ku bixisay weerarkii Cali Mahdi Maxamed wax allaale iyo wixii Farmaajo haleeyay 5 sano taladaadii ahayd wixii nala ku dilahay hal qof oo habar gidira oo kula hadlaya ma aragta hal qof oo habar gidira oo juuq kula ma aragta hal qof oo hawiyaha oo juuq kula ma aragta ana laygu ka xushmaynahay gun ina tahay oo dan gob ahayn 5 sano adoo idilahay oo taladaada laygu dilayn hal maalin kula hadlin inaad inta maanta magaalada Muqdisho ka soo degto tiraahdo labada ex control cadow fadhiya baylan aqli ma jiro yiri baylan aqli ma jiro ninkii saca la hadlay baylan aqli ma jiro waxaan ku leeyahay seedi aqli ma jiro naga xishood intaas ma raba inaan ku dhaafo naga xishood oo horay nooga xishoon weyday oo markasta naga xishoon weyday wali anagu waa ka xishoonaynaa wax maaragtay meelaha qaarkood kama xiri karo oo waa ku ixtiraamaya niyow naga xishood waxaan u soo laabanayaa beesha habar gidir waxaan aad iyo aad ayaan darro u ah in rag aad u qaymo badan oo qaymale aan uga jeeday soo dhaweyntii Cabdi Faarax Shiiqdoon waxa kamid ah Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid waxa kamid ah dhaman cad ayaan arkahay waxaan leeyahay ilmaade rayaalow maalin walba adinkoo abee saxan baarsan inaad inta noo keentiin aad tiraahdeen may sii haydaa wasiir ma ii magacaabaysaa aan madaxweyne ka dhige inaad adigu doorato kursiga maxaa ku diiday iimaanka islaamnimada Allah idinka saare iimaanka Allah idinka qaade maalin walba adinkoo abee saxan baarsan mas annaga nacuna inuu rabo xambaarsan maalin walba markaad la soo galaysid goobaha oo aad garoomada ka soo dejinaysid adigu ma wax doonati haddaba dhagihiina fura habar gidirey horta matalaadiinni waxa ka soo haray Axmed Macalin Fuqi matalaadii habar gidir Axmed Macalin Fuqi baa ka soo haray iyo nin la yiraahdo Ilyas oo kursigii Maxamed Salaad bedelay Allah ilaaha ninkaasna nin qayma galahan ku maqlay xildhibaan Ilyas baa la yiraahdaa kursigii Maxamed Salaad ninka bedelay habar gidirey waa wada cashan dhadhabisay noqdeen Axmed Macalin Fuqi maahane la xisaabtama ku kaca iimaanka Allah ka qaado waxay wareegahayaan digsiyada ay murugsanahayaan wasiir ma iga magacaabaysa waa senatar dhan waa xildhibaano dhan qabaa'il dhan ay matalaan maalin walba ay 20 sano hor toogantihiin oo habar gidir disheen oo magaceedii disheen oo matalaadeedii disheen oo kuraasteedii disheen habar gidir ka hor wareega iimaanka Allah idinka qaadee ka hor wareega habar gidir Axmed Macalin Fuqi intaan ahayn iimaanka Allah ka qaado ka hor wareega habar gidir barakada Allah idinka siibe sharaadin ko farmaajo xambaarsanad ii keenta maxaad ii magacaabe maanta saaciid maxambaarsanaya Maxamed Xuseen Roble ma xambaarati Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ma xambaarati Maxamed Xuseen Roble ma xambaarati ma asaga dhisti ilmaadeeraatihiina ma asaga dhisti
iimaanka allaha idinka qaado oo cudur aan aqoon allaha idin geliyo oo siyaasadda iimaan inkaaro ha idinkaga dhacdo siyaasadda idinkaara idinkaga dhacday naga hor wareega iimaanka allaha idinka qaaday naga hor wareega waa nabahdisheen oo waa ceebayseen oo magacii habar gidiraad gadateen oo 58 dawladood anoo la diriray oo 500 kun oo amxaara la diriray oo calanka shanta gees la keenay aad gilid iga dhigteen ka fariista siyaasadda aan fa idinka dhacdo iimaanka islaamnimada allaha idinka saare ka fariista siyaasadda shuruushuurka waxaan leeyahay أحمد معلم فقي كل دقن أحمد معلم فقي وحير ننكي هيلب كننك سيء والك يودير اللعبك وقولي أحمد معلم فقي ما بمثله وحو مثلا بالحوق له كنا شو هبر قدر ليلة والله بالله طلع شنت هبر قدر ناس يكون قورعيه وح الله عليه وحو نوصو قاضا مقع إلهي أحمد معلم فقي أفاريه سهداد قشي بالحوق له كنا شيء رسولك محمد قعنت اللي سولتك هيانكوي هوتيلada la isugu soo galaya magaalada Muqdisho wadooyinka la isku garaacayo igu wallahi igu billahi igu talay waxba la xiriiri wara toddoba jir habar gidiru haday u baahato Ahmed Macalin Faqi hore ka arkaysa waa u istaagaya halka kuwa kale ay